هذه أبنك وجوهر سوسود وين يا بعض الصحافة ده سيدي أدلس عتين وفتجوه جامين أيي مدحونا جمهورية الصومالي لاند وصبيح عبدي يوفتجوه جامين أيي مدحونا الصومالي يا حسن الشيخ وحيسقي مدين مقالة جيبوتي وحينشروا فرديين ويكود هذليين arrimaha halka ay isugu tageen 8 ilaa 9 bisha December sanadkii dhamaaday 2023 sida la socotaan ee loo baahiyay shirkaas waxa lagu gaaray qodobo media lagu baahiyay oo ka hadlayay arrimaha labada dal kaasoo daba socday shirarkii labada dal ay isugu yimaadeen ee soo bilaabmay 2012 oo fulintoodii ay fadhiisatay oo aan la fulinin ayaa go'aankiisa ugu weyn iyo ahmiyadiisa ugu weyn waxay ahayd in shirarka dib loo ambaqaado وكو إسلام رهان تاسنا لبدا قلبا أي كم يدوبان إن شركة الفلية قد بدي كقرنا وصدح أرنت أقول مهمسن أرنت مسيري لبدا نحكي يعني كذا حيسا والشركة هورين قامان لقى قاعدين كلمة أنت قامان لقى قاعدين إنه لسلسوا هذا القاعدة مويانه إن صدر معلومات جدود لبدا قلا ولا بيدو قام كسي داعي سليم عدان وحكروا مهمة شركة خراء وفايل كودي كاي حي قامدي كسب مدول بكتشري وحكم ده إن لا العالية قد صعد كشركة إسلام رهان تاسنا قلا ولا بينا العالية إنان la samaynin hadallo qoraallo maxaan ku yiraahdaayay dhaawaca geedi socodka maxaan ku yiraahdaayay shirarkan iyo jawiga wada hadalladu u socdaan qodobka 7 ayaa waxa uu qorayaa inaan labada dhinac qolana aan samaynin qoraallo iyo hadallo dhaawaca oo waxyeello u geysta geedi socodka shirarkan waxaana aad uga xunnahay wasiirkii aan noqdo saxaxna heshiiskan hordhaca memorandum of understanding kan aan wada saxaxnay ee aanu si wada jirana u sii wada daynay nuxurka iyo go'aamadan annagoo wada jira saxaafadan aanu ka muuqanay inuu ku tilmaamay war saxaafadeedu qabtay heshiiskan taariikhiga ahaa ee lagu soo saxeexay dalka Djibouti wuxuu ahaa mid dalka midnimadiisa looga shaqeynayay iyo wada jirkiisa marka ugu horeysa Soomaaliya iyo Somaliland waxay ahayn laba dal oo xor ah taariikhdaasna in dib loogu noqdo uma baahna dawladihii Afrika sanadkii loo bixiyay sanadka Afrika ee mustacmaradihii reer Yurub tiradii ugu badnayd ay xorriyadda ka qaateen 26 Juun bay qaadatay Somaliland 1960 xorriyad koodii Julayna idimay khasbina iyada midnimadii iskeed uga qayb gashay 19 18 Mayna iyada xorriyadeedii dib loo soo noqonayay iyada iskeed loo soo noqotay labada dal markaa waxa laga hadlayay haddii muddo dheer la wada hadlayay wada hadalladii ay midhadhali waayeen horta waxaynu ka wada hadalay aynu ka rumayno aynu fulino waa koob waa laba in maxaan ku dhahdaayay mar dambe dib loo sii ambaqaado sida la ajligeed labada qolo marar fara badan 2012 laga soo bilaabo ilaa shirkan imika la galay wixii ka horeeyay waxa ku socday heshiisyada dhaawac fara badan oo aflagaado dhaawac fara badan
oo ka been sheeg arrimaha masiiriga ah ummadaha u dhaxeeya sidaas laashligeed qodobkan mar walbana wuu ku jiray laakiin maanta waxa la rabay in laga mideeyo arrintan waa arrin muujinaysa in heshiiska uu ka baxday dowladda Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa quraanna markaa ku bogaadinaynaa ku baraarujinaynaa waxa weeye in sixitaan ay ku sameeyaan inay apology ka bixiyaan in ay saxaan qodobkan wasiirku aanu sida khaldan u tilmaamay sawiradeedii waa kuwan saddexda madaxweynena dabadeeday taageen saxaafadana hore ugu muujisma ay uga soo baxeen marka waa in talaabadani mid dowladda Soomaaliland ay aqbalaysa maaha waa mid aanu arkayno wixii aanu shalayto iyadoo reedkeedii qoyan yahay aanu ku kala nimi in durba si khalad ay u tilmaamayso dowladda Soomaaliya laakiin shacabka dalka iyo dadka reer Somaliland waxa aan u sheegayaa ayadoo dowladda Somaliland ay ilaalinayso wada jirkooda dastuurka qaranka mas'uuliyadda xukuumadda saareen in ujeedada socdaalkani uu ahaa oo ujeedada heshiiskani uu ahaa in labada dal aynu noqono fil aakhirka meel aynu ku gaadhno mustaqbalka waxaynu ku wada raalinahay inaynu ku sii wada soconno laba dadoo jaara inaynu nahay laba ninoo dadoo maxaan ku dhahday dowladooda lahaan jiray inaynu nahay inaynan ka dambaysiinin Somaliland dhaawacyaa ka soo gaadhay dowladii 60ka iyagu midnimada horseedeen reer Soomaaliya may horseedin reer Somaliland baa horseeday inaan maanta dhaawacyadaas aan dib loo sii xusuusnaanin inaan dhaawacyadaas inaanay dib maxaan ku dhahday mashaakilaad dambe ummadda xasuusin waxay noqonaysaa markaa isaga run sheego haddii uu 5 casho gudaheedba sii jiri waaye ama uu 3 casho gudaheedba sii jiri waaye waxay keenaysaa markaa shaki waxay keenaysaa wada hadallada yada waxa ugu badnaa oo ka wada hadlayno waxa ahayd in nuxur keena kalsooni abuur oo trust keena inaan ku wada hadallo si mustaqbalka ummadaha iyaguna uga faa'iido